waxaa la yiri mailka loogu soo diraa waxaa jiro service extra money sii bixine adoo taagan lagu siinaa waa lagu adkeeyay waa laga diiday sida la sheegay macnaha kale dadkii raacay oo hawshu soo qabanay waxay waa lagu adkeeyay taa in la siiyo loo diiday waxa la yiri mailkana wax weyn maaha 2 days oo imaanaya sababtoo wax meesha lagu sameeyo Ontario leeyahay gobolka leeyahay maaha gobol wax ka baxsan dhibaatada jirta awal oo Canada Post shirkadda weyn oo haysta contractiga Postada inay qaado ayaa bishii anaga aan xareynay November iyo December strike ku jirtay oo shaqo joojin ku jirtay wayna effect gareysay honestly warqadda la soo diray anaga 10kii xareynay 11kii waraq soo diray warqadaas 11 la soo diray 2 weeks ka bacdi noo timid markay shaqada ku noqdeen marka taa fahma ninkan warqadiisa dhalashada waa loo xareeyay next 2-3 days oo waliba shal laga bilaabay ay u imaanaysaa taa markay u imaato passport uu qaadan karaa urgency oo degdeg hooyadiisu aadi karaa tigid leeyahay jareena waa fly gareena maxamed hooyadiisu uu tigi karaa meesha rabo taa waxay tusinaysaa systemka iyo nidaamka iyo documentationka si uu shaqeeyaan waxa ku soo haray sharciga ninka sharci ma baahan sharci waxa u baahan adinka u baahan qaxootigiina u baahan ninka qaxooti ma ninka wadanka u dhashay waxaan yimid oo soo yaacay oo anagoo kala waay wax sharci maxaa sharci ninkan sharci ma xubay ninkan documentationkiisi ID-yada wadanku joogay bas uu baahan yahay oo ka dhumay ama laga xaday ama laga qaatay wixii lagu sameeyo ama laga destroy gareeyay fahad kuwina step lagu helay birth certificate marka hesho waxay helaysaa automatically waxa qaadanaysaa same day aad qaadi kartaa next day social insurance oo shaqo ku tagay oo waxa oo shaqada marka tagaysi lagu weydiinayo haddii adiga qaxooti aad tihiin waxa la siinayaa warqad la yiraahdo work permit la siinayaa asaga work permit ma la siinayaa asaga waxa la siinayaa social insurance wadanka u dhashay adiga marka citizen noqotana social insurance la siinayaa okay taa markuu qaato isla same time waxa loo xareeyay health card macnaha inuu tago meelaha maaragtay taqaatiirta uu tago oo isjeeg gareeyo waxa loo baahan kaar oo caafimaad oo cover gareynaya qarashkiisa ninka hadda hadduu aado jeebkiisa cunaa ama waxaa laga yaabaa waraaq inay siiyaan meesha uu joogo oo coveragekaas ay kasii cover gareeyaan iyagana hadhow dowladda markuu kaarka qaato ay kula xisaabtamaan ay ka qaataan nothing is free okay intaas markay caddahay maxamed howshiisi waa dhammaatay maalintii uu baxay uu dowladda u tegay oo police report dhiibay oo reportkiisa la qaatay hay'ad kasta waxaa loo sheegay hadday immigration tahay baasaboorkiisii reerkiisii muxuu meel walba waxaa la geliyay report la geliyay in ninkan wixiisii ay maqan yihiin meesha tagto waxa lagu leeyahay okay reportka waa haysanaa lagu leeyahay okay magacaaga sheeg dheedu martiga sheeg bum waa loo xareynaa intaas sheekadii maxamed waa in ku dhamaataa oo mar dambe la soo celcelin maxamed sharciga ka maqan maxamed waxa ka maqan waxa waaye inuu waalidkiis iyo walaalihiis helo ay maaragtay ay isku oo hadda haysato taana dhaqaale u baahan tahay waxay u baahan tahay maaragtay talo iyo tusaaleyn u baahan tahay waxay u baahan tahay yaa ka caawin karo oo wadankii joogo oo reerkii maaragtay keeni karo Nairobi waxyaabo badan markii Nairobi imaadaan yaa caawin karo wax badan ay u baahan tahay laakiin dowlad baa qaabilsan hawshina qayb kamid ah qabataba already waa la qabtaba shalay la qabtay qayb kamid oo ilaa iyo jawhar la xiriiriyay marka alxamdulillah hawshu waa socotaa adinka maxaa idinla gudboon waxaa idinla gudboon goofan baa la diyaarinayaa dokumentigaas markaan helno waxaa la sameynayaa account in loo furo akoonkaas asaga uu leeyahay magaciisa ku qoran yahay shilin kasto aad dhigta akoonkiisu galaya aniga ima imaanayo ana dadka hadda GP-yaasha oo la soo diray oo rabo macnaha inay abuuraan dhibaato kale hadhowna luuq soo galayo dhahay cafis waa dhamaad last Tuesday cafis ugu dambeysay aniga waxa hadda xun iga sheegto oo qaldan been iga sheegto ilaahay horta ku saabtamayna intaad waxaad sheeg hadda meelaha aan joogno oo gaar ahaan Canada aad joogtidna waxa waaye adiga waa ay record garaysan tahay oo xisaabtamayna sida maxamed uu xisaabtamayo dad character assassination noocan oo kale ah samayso cyber bullying waa lagaaga daba tagay jahil aan aqoon
haddaan usii sheegaya is ilaali waxaa ku hadlaysa ilaali meeshaan waxaa joogtaa social media joogtaa qof inaad macnaha cirdigiisa iyo sharaftiisa ku xadgudubtid iska ilaali adoo macnaha isdhagaya socialis gareey si kale loo socialis gareeya laakiin maaha qof inaad cirdigiisa ku xadgudubtid diinna maahan dadnimana maahan systemka wadamada aad joogtiin oo qarbiga oodan aqoon u laheenna ma ahan marka boontigaas aan ugu baxaya xasan maasda isaga laga ما شاء الله waxay ku socon karaa xasan wax yar waa ku soconaya waa ku siinaa laakiin hal su'aal waxaan rabay inaan weydiiyo horta niyo fulay hantii ma mogaaliin mood igal brother dadka macnaha hadalada horta wax badan waa og tahay oo han ah laakiin anigana si toosan aan rabaa inaan ku weydiiyo Abu Jidana brother dad badan adiga waxay kugu xantaan inaaba Canada ku laaba karin arrintaas run miyaa mise been waay waxay dhaheen odaga Canada waa ka soo tegay dib dambe ma ugu laaba karo haddana waxaa tiri qofkii aniga Canada joogo oo qalad iga galo waa la xisaabtamaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad u laaba kartid saas bal hadalkaas ku istaag brother maxay kula tahay dadkan see u aragtaa aniga maxamed is ag fadhinaa dalka naga aragto والله waxaan u arkaa aniga kulli waxaan dareemayaa aniga inay beentii ka sheegayaan hatta ina jawaab u celiso waa fiican tahay adi laftigaaga waqti intee lagaan siinaa xasano ma buu waqti ninkaan ma ikaadi ninkaan ma baxaya la dhahay xasan ogaadi xasan dib u noqo okay ninkaan ma baxaya la dhahay ninkaana haysto lacag ku haysta madaxiisa la dhahay ninkaan ma bixi karo jawara loo celinaa la dhahay ninka waa kaasa hadda meeshu ka raaxaysanay u jeedaa we prove it wrong somaha waxaan rabaa marka xasan inaan ku dhaho waqti intee lagaan siinaa dadkaas inaan ninka aanu agstaagan la arko tam ii sheeg bal والله انت صاحب ما هذا اي شيء how long yartaa dadkii oo waxaan dadkii information ka sheegay inta saaxiib ugu filan ba marka Soomaaliya Ilaahay ka cabsada hay document ma ku soo diray inta ma soo saare document ma ku soo diray ma soo saare ma niyo beentood ma ani waxaan u sheegaa dadkii hadda hoose fadhiyaan qaar walaal rule gaari karto ma ogeedo xasano rule gaari karto heelka u jeedaa Soomaa حسن aniga ninkaan muu noqon karaa advocacy ama macnaha qof 92 فهمت اكو مقلع برادر الحمد لله عروران كلها هي تضوع عرور يعني كان يجي joogto kan ugu weyn 28 buu galaya kan ugu yarna 16 uu jiraa ما شاء الله waa shaqaystay ilaahay si ما شاء الله marka jaahilka hatta hadii laga soo saaro aniga warheede miyuusan aniga canuga aan dhalay ii soo diri karin visa ii soo diri karin aan ku imaan karin ما شاء الله ليه كسع الليبان ميسن مسي ولا زك دافا ما وانا ما هذا الكاس اسكداف ليبان سينا واحد يرسيها كسع السلام عليكم horta dhamaantii waan salaamayaa aad baan idin salaamayaa saaudantiin wiilka qolka isoo qabtay xasan iyo abutjaal Canada boy horta dadkii idin taageersanaa baan ahaa ilaa intaad Nairobi joogteen سدوين salaam ستة سنين وكوجي ذا كوسا مختار وي وين سلام يا هذا والله وكندي بوي مودا كوجرتاي ما دوسا والله او بالله او تالله ويلكاس dadkan GB-ga iska dhaaf wiilkaas intii aad Nairobi joogtay intii dacaayada la waday ma baxayo intii la lahaa qolal kalan ka doodaya aniga aan saarnaa oo waliba aan maartay anoo shaqo ku jira aan soo furanayo qolkayga marna aan ka doodayay runtii waxa waay waxaad qabatay ummadoo dhan baa ku jeeda ilaahay baana kugu la xisaabtamay ilaahay baadna ka rabtaa ajir abadsharo cid aad u baahan tahay ma jirto qof eray xun soo qora hadda wiilkan xasan suuq weydiinayay waxa la yiri Canada kuma laaban kara asaga abadsharo Canada kuma laaban karo muxuu qof u dacwaa وكاسا ليو ليبان مقشعدنا حنت waan maqlay كسعو ninkan Canada ilmihiisa jooga sideed todoba cunug baa joogtay Allah u daayo anytime saacadu rabana waa bixi karaa waxa weeye nin Canadian weeye laakiin aniga wiilkan yarka oo wiilkayga kale u leeyahay aniga curadkayga
iyo wiilkan Canada boy was leeyihiin waxaa muhiima wiilkaas intuu ku rafaadsanaa wadankaas 100 qof oo caan iyo aan caan ahayn oo GB qolal ka soo furtay qof walba wuxuu doonay ku hadlayay heer xataa subaxii xataa guriga aad kareysanayseen qol baan ka doodayay aniga waxa la lahaa lacag buu ku aruursanayaa guri buu u kareenayaa asagoo guri ma deganeen miyaa hore waxaasoo dhan hadda waa laga soo gudbay hadda waxaan u baahannahay wiilkan Canada jooga cid u baahan yahay ma jirto waxaan u baahannahay walaalihiis iyo hooyadiis oo xanuunsan oo waalidkiisa Canada in aad arrintaas processkaas ka qayb qaadato adiga Abu Tushaala hawsha aad gasho ummadda Soomaaliyeed oo Mareykan joogta ama meel kasta joogtana waxaan ku baraarujinayaa in loo kaco oo wiilka inta koonto loo furo aan ka qayb qaadano oo lacag ugu shubno wax kale anaga nooga baahan yahay passport buusan nooga baahnayn sharci buusan nooga baahnayn in aan hooyadiis u dacwoolno anaga buusan nooga baahnayn hawshaas oo dhan ninkii asaga keenay meesha baa ku jira asagaana dhameynaya Abu Tushaal baana dhameynaya laakiin waana ugu hambaliyeynayaa ma sha Allah waan leeyahay ilaahay ha ku barakeeyo wiilka yarka waxaan rabnaa anaga waalidkiis iyo hooyadiis iyo walaalihiis inay isku meel ka soo toosaan waxaan kala ku darsanayaa in yar baan ku darsanayaa aan tubaraac ahayn maalinkii 3 bar ayadoo laga joogo qolka Daahir Cali soo fuulay Daahir Cali soo waa daawanay wuxuu yiri kuma caawin kara aniga ma ku caawin karo sababta waa la soo hadlo waxa wiilka hadduu Ingiriiska tago uu dacwoona hadduu tago Canada uu dacwoonayaa oo waalidkii uu dacweynayaa habeenkii markuu soo qabtay wiilkan wuxuu ku yiri haddii aad Canada tagto habarata ama inaad dacweyso abtiga ma laga yaabaa wuxuu hor Ilaahay iskaga deynaysaa wiilkii on macnaha qalbigiisa wax ku furan yihiin yuusuf rabo loo dhaqmay calaa xal dhib ma leh Ilaahay waa keen hadda waa nabad keen hadalka yaan waxba badinin cid aad u baahan tahay ama aad la xiriiri karto Canada boy on Ilaahay iyo Abu Tushaal ka ahayn qol kasta aad soo fuusha xataa dhigtaan wixii aad maqasho dhigta kala ha u sheegi ma fahantay Abu Tushaal la xiriir koonto furo koontadaas lacag lagu aruurinayaa hooyada waxa muhiim ah hadda hooyay iyo walaalaha inaad u dacwootid meeshii adiga rafaadka adiga aad shalay ka soo tagtay bay joogan waalidka ma fahantay taas muhiim ah cid kale u baahan مود ما تقش مود أقش ها أوكي أنا سمع waxyaabahan ka hadlaya la diidan yahay ma fahantay marka dadka GB-gaan waxba ha wareysanin aniga madaxaadii saaranta maaragtay Abu Tushaalow waxa muhiim ah cunuga yarka asaad u soo gacan qabatay baan kugu taageersana been ku sheegi maayo waana mahadsan tahay dhammaan intan dhageysanaysa waa mahadsan waa u taaganahay mar kastaba caawintiisana waa ka qayb qaadanaynaa waxa muhiim ah waalidka ilmihii iyo hooyo in loo dacwoodo oo meeshii adiga rafaadka aad shalay ka soo tagtay in laga soo kaxeeyo waana idin salaamaya ما شاء الله هذه ليبان سدو مختار هاد بقى ما تصنت أوران ها كسر مركا حاجة وحن لا يا تلسبوه اللي أبتي هذا جوكتو دتك أو قرآن الله حمسو قرآن جماعة كه تلسبوه اللي أبتي هذا جوكتو دتك قرآن كسو حم قرآن يقبو كسر السلام عليكم دمانتين وإذن سلامي أبو تيجانا محمد حسن أو أن كحيرنا هقول كيسة دمانتين وإذن سلامي أبو تيجانا هورتا لمبر 1 أنا قاسة استعلاو 42 days say maanta ii tahay aan soomaa soo ii sheeg aadan kuugu duceeyay ilaahay kuu aqbalo qalbiyan adigoona ogeyn ayaan kuu duceeyay because qadkaan kaala socdaa boo wata tan labaad idinka codsanaya AFC ma loo furin karaa Maxamed oo Xasan maadaama aan ku xiranaa